يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، فإن من نعم الله على عباده ما هيأ لهم في الدنيا من الفرص العظيمة والأوقات الثمينة، والناس في هذه النعمة قسمان: قسم يستغل الفرص ويتزود منها، وقسم يخرج منها خاسرا لم يستفد منها ولم يتزود منها. أيها المسلمون عباد الله، إلهي سبحانه وتعالى nicmooyinkiisa waxaa ka mida addoomihiisa uu siiyo inuu rabbi subxaanaه watacaala u suurtogeliyo u diyaariyey fursado qaaliya oo ku soo mara adduunyada inta ay joogaan. haadihi min nicam illaahi subxaanaه watacaala. ilaahay wuxuu isu daba dhigay addoomihiisa maxadaata tasawudi lilaakhira, kaalmo qaali ah oo ay uga sahay qaataan la kulanka rabbi subxaanahu watacaala. dadku waxay ugu qaybsameen fursadaha qaaliga ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey rabbi u diyaariyey laba qaybood: qaar fursadahaasi ka faa'iidaysta kana sahay qaata, iyo qaar faramadhnaan kala baxa oo gala liiska kuwa khasaaray. allah baynu subxaanahu watacaala khasaare ka magan gelaynaa. ayuha almuslimuuna cibaad allah, suurtagal uma aha qofka bani aadamka fursadaha soo maraya inuu ka faa'iidaysto isagoo marka hore aan u diyaar garoobin, isagoon usii samaysan qorshe iyo arrin uu kaga faa'iidaysto uu kaga sahay qaato. fursadaha qaaliga waxaa ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala addoomihiisa adduunyada uu ku soo mariyo shahru ramadaan almubaarak, bisha ramadaan ee barakaysan. allahu subxaanahu watacaala jacala fiiha furasan cadiima. ilaahay bisha wuxuu geliyey fursado qaaliya. فهي فرصة لتكثير الحسنات وتكفير السيئات، وهي فرصة لرفع الدرجات، وهي فرصة لدخول الجنات، وهي فرصة للاستعداد والتزود للقاء رب العالمين. وفيها ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، شهر رمضان. فرصتها كجرا كولا سوكو بكرمها. الله سبحانه وتعالى وحو كدغي فرصة addoonku xasanaad iyo wanaagyo badan oo sahay u noqdo uu samayn karo. allah wuxuu sabab uga dhigay addoonka dembiyada iyo khaladaadkii ka dhacay in loo dhaafo. ilaahay wuxuu sabab uga dhigay addoonka ka faa'iidaysta darajooyin ilaahay kor inuu uga qaado. ilaahay wuxuu ka dhigay fursad addoonku uu kaga qaadan karo sahay anfacda maalinka ilaahay lala kulmaayo. addoon walbana ilaahay uu weydiin doono wuxuu sameeyey khayr iyo shar. faman yacmal mithqaala daratin khayran yara waman yacmal mithqaala daratin sharan yara. wafiiha alfursatu alcadiima leylat lqadr shahru ramadaan. waxaa ku jirta fursadda aadka u weyn leylat lqadri oo camalka la sameeya uu ka khayr badan yahay camalka la sameeyo 1000 bilood, sida ilaahay uu ku sheegay fi lqur'aani alkariim. ayuha almuslimuuna cibaad allah, shahru ramadaan fursatun litagyiiri ma binafs. waa fursad weyn oo addoonku uu ku bedeli karo xaalkiisa, arrinkiisana uu ku sixi karo
وفرصة للتوبة والرجوع إلى الله وفرصة إلهي سبحانه وتعالى وقلنا كره هذه الفرصة العظيمة من ضيعها فهو الخاسر حقيقة فرصة كوين قفك ضيعها ربهاني سقا يا خساروي قال أبو هريرة رضي الله عنه صعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر فقال آمين 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 فقيل يا رسول الله إنك صعدت المنبر فقلت آمين 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 فقال عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل وقال لي إن من أدرك شهر رمضان فلم يغفر الله له فدخل النار فأبعده الله فقل آمين فقلت آمين نبي محمد عليه الصلاة والسلام منبرka ayuu u baxay saddex jeer buu yidhi aamiin iyadoo saxaabadu ay maqlayaan saxaabadu waxay rasuulka ilaahayow minbarka ayaad u baxdo aamiin baa tidhi yacni yaa ducaynaya ducadooda aamiin aad u lahay wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa ii yimi malaku jibriil wuxuu igu yidhi qofka bisha ramadaan ay u soo gasho fursaddaa qaaligaa gaadha oo sababteeda aan loogu dembi dhaafin oo ilaahay naar uu geliye iyadoo ramadaan ay soo martay waa fursad naar uu kaga badbaadi karo ilaahay ha fogeeye aamiin dheh rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi aamiin baan aniguna idhi amana الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam calى ducaaءi jibriil aw liducaaءi jibriil calى man lam yastagila hadihi اlfursaة اlcadiima nebigu wuxuu aamiin u yihi habaarka uu habaaray malaku jibriil calayhi الsalaatu wasalaam qofka fursaddaa qaaligaa dayaca ee aan ka faa'iidaysan ayuha almuslimuuna cibaad allah qofku inuu fursadaha qaaligee soo mara ka faa'iidaysan kari waayo waxyaabaha sababa waxaa ka mid a inaanu usii diyaar garoobin oo fursaddii afkawna ay uga soo gasho iyadoo naftiisu aanay diyaaru ahayn isagoo wax qorsho ah iyo wax nidaama aanu samaysan fursaddaa siduu uga faa'iidaysan lahaa shahru ramadaan كيوم الاختبار فمن لم يقرأ قبل يوم الاختبار فكيف ينجح في يوم الاختبار بشهر رمضان ومالك امتحانك لما رأيه كله هدانو قفكو مال ما امتحانك كورية وحخرين وانو حفدين وانو قرشين وانو امتحانك وديار قروبين امتحانك مركا أفكا وغسو قلي مالك يسيلا تاقية هاي أرنتو واكو بلارا ريسا أرنكو نواكب باهيا jawaabo su-aalaha si uu ka bixiyo saxa si uu usoo qabto ama u xusuustaana aada bay ugu adkaanaysaa ayuha almuslimuuna cibaad allah fursaddaa qaaliga ah iyo sida ay u mudan tahay in loogu diyaar garoobo oo laga faa'iidaysto maanta waxaa garanaya dadka geeriyooday ee dhulka xagga hoose ka xiga ee aada iyo aada u jecel in adduunyada dib loogu soo celiyo liyastaqiluu jamiica alfuras walow kaanat rakcatayn si ay uga faa'iidaystaan fursadaha oo dhan walow fursaddaasi ha noqoto laba ragcadoodoo ilaahay subxaana wa tacaala ay u tukadaan dadkaasaa qadarkeeda iyo qiimaheeda garanaya waalmu'minuun aladiina tacallaqat quluubuhum bilaakhira yashcuruuna kadalika bihadihi alfursati alghaaliya mu'miniinta quluubtoodu daaru laakhira ay ku xidhan tahay hamigoodu yahay hamulaakhira fursaddan iyaguna aada bay u dareemayaan taasina waxa ay sababtaa fursaddan qaaligaa inay nafta u diyaariyaan inay qorsho usii samaystaan ay kaga faa'iidaystaan ayuha almuslimuuna cibaad allah maxaa u suurto gelinaya qofka muslimka ah inuu u diyaar garoobo bisha ramadaan isla markaa qorsho u yeesho ka faa'iidaysigeeda arrimo badan baa qofka muslimka ku caawin kara inuu noqdo mid diyaar u ah ka faa'iidaysiga bisha ramadaan arrimahaasi waxaa ka mid ah anniyatu saadiqa waalcaziimatu lakiida niyo wanaagsan qofka muuminka inuu la yimaado intaanu ramadaan gaadhin oo uu niyeysto fursadda inuu ka faa'iidaysto oo uu ka sahay qaato iyo inuu go-aan adag qofku u yeesho waxa uu niyeystay fulintiisa ayuha almuslimuuna cibaad allah niyada qofku uu niyeysto wakhtiyada soo socda weli aanu gaadhin acmaasha khayrka ah ee ku soo foolka leh inuu sameeyo uu ka faa'iidaysto saay aakhira uu ka dhigto
iyada lafteeda ayaa cibaado ah. haddii uu dhinto addoonku isagoon Ramadaan gaadhin laakiin niyeystay Ramadaan inuu ka faa'iidaysto niyadaasuu ilaahay ajar uga qoraya. lianna nabiya calayhi salaatu wasalaam qaal inama alacmaalu binniyaat wa inamaa likulli imri'in maa nawaa. qof waliba wuxuu niyeystay buu leeyahay. allahu subxaanahu wa tacaala wuxuu inoogu sheegay fi lqur'aani alkariim dad mu'miniina oo camal wanaagsan niyeystay oo geeridu ay ka soo hormartay camalkii samayntiisa oo ajarkii camalkaa ilaahay uu qoray bisababi hadihi niyati saalixa. qaala rabbuna subxaanah waman yakruj min beytihi muhaajira ila allahi warasuulih uma yudrikhu lmowt faqad waqaca ajruhu cala allah. qofka gurigiisa ka baxa isaga oo niyeysto go-aansaday allah daraaddii inuu hijroodo, nebi maxamedna daarulhijra oo madiina inuu ugu tago, dabeetana geeri ay soo gaadho isagoo weli aan camalka iyo shaqada aan qaban, faqad waqaca ajruhu cala allah. ajarkiisu allah subxaanahu wa tacaala agtiisa waa u yaala. allah baa isku waajibiyey addoonkaa camalkaa uu niyeystay ajarkiisa inuu siiyo. wa hada nabiyuna maxamed calayhi الsalaatu wasalaam yaquulu fima rawaahu abu daawuud ina bilmadinati la rijaala maa qaطactum waadiya walaa sirtum masiira ilaa kaanuu macakum wafii riwaaya sharakuukum fi lajr xabasahum اlcudur. rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi isagoo jihaad ku jira saxaabada qaar ay la socdaan magaalada madiina waxaynu kaga nimi raggaasi socod kastoo aada socoteen, waadi kasta ama tog kastoo aad ka tallowdeen, ajarkii aad ka hesheen mid leeg bay iyaguna ka heleen. wahum fi lmadiinati qaaciduun, madiine ayay fadhiyaan oo jihaadka iyagumay bixin. rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi cudurdaar baa xabisay oo xidhay, go-aankooduse wuxuu ahaa camalka saalixa inay ka qayb qaataan, allah daraaddiina inay u jihaadaan, diinta rabbina subxaanahu wa tacaala inay difaacaan. ayuha almuslimuuna cibaad allah, haddii aada niyeysataan bisha Ramadaan inaad ka faa'iidaysataan oo fursaddaa qaaliga aydan dayicin, haddaad geeriyootaan sidaa allah uu sheegay rasuulkiisuba ajarka laydinku qoraya. haddii ilaahay nolol idinku gaadhsiiyana yakunu dalika sababan litawfiiqi illaahi lakum min istiqlaali hadihi alfursa. ayuha almuslimuuna cibaad allah, haddii geeriya ay ka soo horeyso ajarkaasaa la qoraya, allah rasuulku uu ku warramay. haddii kalena waxay sabab u noqonaysaa niyadaa fiican iyo go-aankaa wanaagsani in allah subxaana wa tacaala uu ku waafajiyo bisha Ramadaan inaad ka faa'iidaysato. faina man sadaqa allah sadaqahu allah. qofka ilaahay subxaana wa tacaala qalbigiisa iyo niyadiisa uga run sheega, allahna waxa uu doonayo ayuu u dhabeeyaa. nabiyuna maxamed calayhi الsalaatu wasalaam isagoo jihaadka ku jira ayaa jihaadkii markii laga soo jeestay dagaalkii khaniimadii in la qeybsado la gaadhay, ayaa nin kamid a ciidankii baa la yihi qeybtaadi waa tan. wuxuu yihi anigu taa umaan iman, khaniimana idimaan soo raacin, waxaan u imi leebinuu halkaa cunaha iga galo ama dhuunta oo halkaa u iga baxo, ilaahay daraaddiina nu shahiido. rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yihi haddii ay arrintaasi ay ka dhab tahay allah uu u dhabayn doonaa. waxaa dhacday dagaalkii kaa ku xigay in saxaabigu halkii uu tilmaamay leebkii uu kaga dhacay, halkuu tilmaamayna uu ka baxay, oo rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam uu yihi allah buu u run sheegay oo qalbigiisa uu uga dhab sheegay, allahna wuxuu u dhabeeyey wixii uu doonayey. is'alu llaha yaa cibaad allah alcazimata cala rushd. allah weydiista addoomaha ilaahayow inuu idin yeelo go-aan fiican oo aada go-aansataan hanuunka iyo wanaagga samayntiisa. ayuha alcabd lmuslim, hadda go-aansan Ramadaan inaad soomto oo xubnahaaga oo dhami xaaraan o dhan ay ka soomaan. hadda go-aanso salaatu taraawiix o qiyaamu leyl, dadka tukanaya bishoo dhan inaad ka mid noqoto. hadda go-aanso sadaqada inaad badiso. hadda go-aanso inta awooddaada inaad qur-aanka aada dhamayso. hadda go-aanso inaad ilaahay barido in badan oo ducooyinka dhaadheer naftaada hadda sii bar. go-aanaha ku noqoto an tukhira min adducaa fi shahri Ramadaan. ayuha alcabd lmuslim,
fursadaha qaaliga bisha Ramadan ku jira dhammaantoodba inaad ka faa'iidaysato hadda niyeyso go'aana ha ku noqoto waxaa ka mid ah waxyaabaha ay tahay qofka muslimka ahi bisha Ramadan naftiisa inuu ugu diyaariyo bitawbati nasuux tawbad ka dhaba shaqi kuma jiro inaynu dambi basharu nahay hadiya habeenba waa dambaabayna dambiyadu waxay ka mid yihiin asbaabaha waaweyn ee adoonka seejiya fursadaha qaaliga inuu ka faa'iideysto dambiyadu waxay sabab u noqdaan qofka qalbigiisu inuu madoobaado oo uu indhabeelo ama uu indha dareeyo uu kala garan waayo waxa xun iyo waxa san uu kala garan waayo almunkar walmacruuf wuxuu ilaahay ogol yahay iyo waxa rabbi subxaanahu wa tacaala u diidan yahay dambiyadu waxay sabab u noqdaan adoonka cibaadadu inay ku cuslaato iyadoo ilaahay si guud towbada inoo fare uu yidhi watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun lacalakum tuflixuun wasaab ilaahay uga dhigay guusha qofku wakti wal iyo xaal wal iyo meel wala uu joogaba u gaadho haddana qofka muuminka waxaa la gudboon inuu sii daahiriyo qalbigiisa carabkiisa iyo xubnihiisa dembiyadana allah uga toobad keeno bisha Ramadaan intaanay soo gaadhin ayuha alcabdu lmuslim haddii soob waajiba lagugu leeyahay Ramadaan intaanay kuu soo gelin iska gud waa waajib mana banaana cudur daar la-aan qallaha lagugu leeyahay inaad dib u dhigto Ramadaan ay kuugu soo gasho hadday kuugu soo gashana Ramadaan dabadeed qalle iyo fidyo kafaaro kaaga noqota iyo dhaafitaan dembiga aad gashay oo aqalihii inaad cudur daar la-aan dib u dhigtay ayaa waajib kugu noqonaysa wata sheegtay Caaisha radiyallahu anha se Bukhaari uu saxiixiisa ku wariyay kaana yakunu calaya sawm aw ayaam min Ramadan falaa astatiicu an aqdiyahu ila fi Shacbaan waxaa dhici jirtay in qalle Ramadaan laygu yeesho oo aanan awoodin inaan qalleeyo Shacbaan mooyaane waxay yidhahdeen cilmigu xaafid ibn Xajar raximahullah marka xadiidkan ay sharaxayaan waxaa hadalkaa Caaisha laga qaadanaya oo ina tusinaya in qofka Ramadaan qalle lagaga leeyahay ay tahay ugu dambeyn bisha Shacbaan inuu iska gudo oo Ramadaan aanay ugu soo gelin ayuha alcabdu lmuslim cawid nafsaka cala alcibaadati qabla Ramadaan naftu waxay u baahan tahay cibaada in la baro waxay u baahan tahay in lagu tababaro oo loo sii diyaariyo cibaaday fududaysaa Ramadaan intaanay kuu soo gelin naftaada cibaada sii bar qur-aanku qofka marna qalbigiisa uu u furmaa marna wuu iska xidhaa in badan kama akhrii karaba Ramadaanun hala sugina hadda sii bilow akhrinta qur-aanka Ramadaanna waad ka sii badin doontaa kadalika ducaa allah subxaanahu wa tacaala baryadiisa hadda sii badi walistigfaar وذكر الله تبارك وتعالى الله دم داف ويديسو حسك إلهنا فربضي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عائشة أي شيكتي كما في الصحيحين رمضان مركز لقيبة الدبيشة وصوم بدنا وحايد شهر شعبان حصوم كوفر بدني يا رسولكم حكمة ذا موغدة كتيرة وحكم ذا سو نفطة وقود دياريو صوم كرمضان واي يا عبد الله سنة كورنا دانا مالينك السوبي ورمضان markay soo gasho soomaad bilowdo inta kalena cuntada iyo cabitaanka aad badsan jirtay waxa dhacaysa soomku inuu kugu cuslaado naftaadana u daciifiyo dabeetana inaad soomanaato mooyaane fursadaha kale ee qaaliga ah ee bishaasi ay leedahay inaad ka faa'iideysan kari weydo oo quraan akhri kari weydo oo qof jiifo unaad noqoto tacbaana oo Allah xusi kari weydo oo aad salaadii xataa habeenkii maalinkii oo dhan markaad soomkii tacbaan ku ahayd ee aad furtay haddana culays kale inuu kusii fuulo oo xataa taraawiixda jus barkii lagu tukanaya aad awoodi weydo waana saadad fara badan xaalkoodu yahay idan nafta soomka sii bar hadhow tolo ula fududaan doonaa adoo sooman iyo acmaal kale oo fara badan oo khayrana aad samayn doontaa ayuha alcabdu lmuslim tacalam axkaam asiyaam قبل شهر الصيام أحكام الصوم كبره انت آل قارن شهر رمضان وحين مدمدو كاغا تشيرا مشاكين أهل العلم قويدي الله باكو أمره يجري فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون علمي قفك عبادتي سيساقا وقاركا كصابصا سيدا قاركا واجبكا وقوها إنو برتا وفرض عين وفرل إساقا سيقوني وصارا
maantana qof jahli loogu cudur daaraya ma jiro, gaar ahaan dadka jooga magaalooyinka, waayo cilmigiibaa meel walba laga sheegaya, kutubtiibaa taalla ciddii wax aqrin karta. waxaa duuban axkaamtii soomka iyo axkaamtii salaada taraawiixda iyo qiyaamu leyl iyo axkaamta kale ee bisha xidhiidhka la leh. ayuha almuslimuuna cibaad allah, aciduu anfusakum lihada الshahri اlkariim, wasalu llaha an yubaligakum hada الشهر الكريم وأن يوفقكم للاستغلال من هذه الفرصة العظيمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، بشهر رمضان waxyaabaha ay tahay qofka muslimka inuu ugu diyaar garoobo waxaa ka mid ah tahiiru lquluub wa tanqiyatuha wa tasfiyatuha min aladraan. ayuha cabdu lmuslim, bisha ramadaan wax lagaga faa'iidaysto waxaa ugu horeeya qalbiga. qalbigu waa ka aada go-aanka fiican ku gaadhayso, qalbigu waa ka xubnahaaga amraaya, qalbigu waa ka hadduu hagaago oo usoo jeesta ka faa'iidaysiga fursaddan xubnuhuna ay toosayaan ay hagaagayaan. alaa waina fi ljasadi mudca idaa salaxat salaxa aljasadu kulu waidaa fasadat fasada aljasadu kulu. qalbigaaga u culo u diyaari bisha ramadaan. dunuubta madoobeysay ama qaybo kamida haysata ka nadiifiyo ilaahay u toobadkeen. qalbigaaga tawxiidka ku weyneeya keliyeynta ilaahay oo allah ku xidh subxaana wa tacaala. qalbigaaga ka nadiifi bidaca iyo muxdathaadka waxa aan diinta ka mid ahayna lagu soo daray. liyatacallaq qalbuka bisunati rasuuli illah, qalbigaagu ha noqdo mid ku xidhan oo jecel oo daba socda sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo waddadiisa. qalbigaaga ka nadiifi cuqdadaha iyo caloolxumada adduunye ku dhisan. fainahu kama qaala rasuulu llah laa yaxilu limuslimin an yahjura akhaahu fowqa halaath. qof xalaal uma aha walaalkii inuu kaga maqnaado cadho, walaalkii inuu kaga maqnaado cuqdad iyo calool xumo, walaalkii inuu gooyu ka hijroodo 3 maalmood wax ka badan. waa haddaanay arrintu lilaahi ahayn, ay tahay linafsi walidunya. nafta dheefteeda haddii cadhadu ay ku dhisan tahay iyo xuduuda iyo dheefaha adduunyo, amaa hadday tahay cadhadu lilah, hadday tahay gooynta iyo ka hijroodku lilaahi rabi اlcaalamiin, fahiya mashruucaة ilى ywmi اlqiyaama xataa yarjica alcabdu cama hajara akuuhu lmuslim canhu min ajlihi. ilaa addoonku uu ka soo noqonaayo waxa walaalkiisa muslimkahay daraaddii uga hijrooday, ilaa qiyaamaha laga gaadhayo inuu gooyo cadho u kaga maqnaado oo hadalka uu ka goosta way bannaan tahay. waa hadday arrintu tahay lilah, faina alxuba lilah والبغض لله من أوثق عرى الإيمان كما أخبر بذلك رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. إلهي درادي عدي لجعلان إلا جعلان عدي لنعينا الله درادي إلا نعا waxay ka mid tahay qodobada iimaanka kuwa ugu adag. walan yajida cabdu xalaawata aliimaan xataa yatasifa bidalik. addoonna ma helaayo macaanka iyo dhadhanka iimaanka ilaa taa uu ku sifoobayo. ayuha almuslimuuna cibaad allah, shahru ramadaan waa fursadda qaaliga iyo nicmada ilaahay. qofka muuminka ahi waa inuu noqdo mid ku faraxsan inay soo dhowaato iyo inay usoo gasho. wa hada min calaamaati aliimaan. amaa qofka karaahiyeysanaya bisha ramadaan soo gelitaankeeda ee dhibsanaya culays ay ku hayso, fa hada calaamatu nifaaq. taasi waxay calaamad u tahay nifaaq qofka qalbigiisa ku jira. ayuha almuslimuuna cibaad allah, ilaahay fadligiisay ka mid tahay ilaahay uu yihi ha lagu farxo. raxmadda ilaahay bay ku tirsan tahay. ilahay uhi muuminiintu ha ku farxaan. qul bifadli illaahi wa biraxmatih fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun. ayuha alcabd lmuslim, arrintaa u diyaar garowga bisha ramadaan oo weliba labada bilooda ka horeeyaba u diyaar garowgeeda lagu jiro waa mid ay samayn jireen dadkii wanaagsanaa inaga horreeyey, waana taa ay inagaga dheereeyeen. camr ibnu qays raximah llahu tacaala kaana ida dakala shahru shacbaan aglaqa xaanuutah
وتفرق لقراءة القرآن. بش الشعبان مركا أي بلاد الدكان كي سوا حيل شري وحانو قعن بنانان شري وفراقه وهيل شري أخرنت قرآنك. هذا أبو بكر البلخي رحمه الله يقول: شهر رجب شهر الزرع، وشهر الشعبان شهر سقي الزرع، وشهر رمضان شهر حصاد الزرع. وصدح لا بلود استبيها رجب والشعبان والرمضان. رجب وبشا زرع على بيره معنا ولوسي ديار قروب شهر رمضان وناقيب بدن بالله السماية ورمضان لوغو ديار قروبيه. شهر الشعبان وبشا الله ورابيه وحي لبيري بشي رجب. شهر رمضان وحا لقوستا وحي لبيري إلا ورابيي مريه كصوبحي. تامعان يدوى محي لا يستفيد من رمضان إلا من استعد له قبل دخوله. رمضان كما فائدة سنة قف انتاني سوقل وديار قروبي موياني. قاركود وحيورن شيرين رجب كالرياح، وشعبان كالغيب، ورمضان كالمطر. بش رجب وحاي كدغنتاي دبيلها الروب كوضه ضرورها كحييه. بش الشعبان الضرورة لفتيده كدغنتاي. بش رمضان والضرورة الروب كدي ودايوي. marka hadda macnu waa maxay haddaanay dabayli horeyn daruurina aanay soo joogsan roob xagu ka imanaya. macnu waa maxay Ramadan ha loo diyaar garoobo inta aanay soo gelin markaas midheeda la goosan karaa faa'iidadeedana la gaari karaa. as'alu Allah al-'azim rabb al-'arsh al-'azim an yuballighana shahr Ramadan wa an yuwaffiqana jami'an للاستفادة من شهر رمضان والتزود منها للقاء رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وتجنب اللفظين إن كليهما ومقال جهم عندنا سيان. يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان. واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقظان. كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان. واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني. الأول المبدي بغير بداية والآخر المفني وليس بفاني. وكلامه صفة له وجلاله منه بلا أمد ولا حدثان.